السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين سوسو oo mar labaad idinku soo laabatay waxaan walaalahay inala wadaagayaa program yariisa oo ku saabsan subaxdii sidee aan inagoo habiya aan ilmaheena habi iyagoo ah aan u diri karnaa laba insha Allah oo kala qaadaya lambar 1 waxa waaye ilmaheena marka subaxdii anigu aan soo kaco waa waxa anigu aan sameeyaa inala wadaagaya insha Allah subaxdii marka soo kacdid marka waxa laga rabaa hooyo inay habeenkii wax kasta ku diyaarsan yihiin kama hadlaayo cunto kama ana hadlaayo cunto la diyaarinayo laakiin waxaan ka hadlayaa dharka ilmaha inaad diyaarsatid shay kasta ilmo kasta inuu diyaarsado kuwii waaweyn iyaga diyaarsanaya waa inayna habeenkii ay diyaarsadaan kuwa yaryarna aad u diyaarinaysid inta marka habeenkii waajibaadka ka soo baxdid subaxdii waxa laga rabaa lambar 1 marka alle aad u mahadnaqdid oo tukatid lambar 2 waajibaadka alle marka gudatid lambar 2 ilaahayna u mahadnaqdid lambar 3 waxa laga rabaa suuratu baqara inaad shidatid marka guriga ku shidatid foox yar waa inaad ku shidataa fooxu wuxuu u fiican yahay qaybta maskaxda iyo madax xanuunka iyo maaragtay culeyska madaxa ka saaran ayuu ka qaadaa kaas marka ka hadlayno insha Allah ma ku sii fogaanay laakiin hooyo waxa laga rabaa marka waxa ku soo abaaraysa kijadii oo ku hagaagsan waxa ku soo abaaraysa qaybta quraacdii ilmaha wuxuu cunaa adaa og ilmaha wuxuu qaatan adaa og wuxuu qaadan lahaa waa u diyaarinaysa wixii kalena waa siinaysa waa u sameynaysa ilmaha marka quraac la'aan lagu ma diri karo sababtoo ah ilmuhu fahmad ma yeesho cunuga quraac ku baxa marka cunugaga soo ugu fahmad bato ilmahaaga ku dadaal khudaarta iyo cabitaanada ay maaragtay oo bilaa sonkorta ah oo sonkorta ku yartay ama malab insha Allah marka maxaad ku soo abaaraysa inta marka diyaarto waxa ku soo abaaraysa qolkii ciyaalka marka soo gashid ilmo kasta waxa la rabaa si naxariis loo degan inaad ula hadashid hooyo macaan hooyo qalbi ma kacday hooyo kac madaxa ka salaax dhabanka ilmaha aad bay u jecel yihiin dhabanka inaad saa u salaaxdid marka ka salaaxdid afka ka dhunko ama dhabanka ka dhunko ilmaha ka wasuusin hadaa dhaxdid ma cadayaan ila xalay baa u cadayday kabacdiina marka ilmaha inta aad u sameeysid mid kasta uu soo kacaya habi iyo wuxuu ku kacayaa bahalkii waqtiga la tagayna saacado ka hor waa inaad cunugaaga ka isa sababtoo ilmuhu wuxuu jecel yahay cabaar inuu sariirta jiifo uu iskala bixiyo cabaarka ayaa 10 daqiiqo 2 daqiiqo 5 daqiiqo xokaa ma dhibayso hooyo u daa kala iskala bixiyo isagoo habiyo ka soo kacaya marka sariirtii wuxuu ku arbaarayaa qaybta musqusha haduu hawlihiisa soo dhamaysto kii salaad tukanaya alxamdulillah kii kuwii salaad gaaray marka salaadoodii tukanaya kuwii aan salaad gaarin markaas suuratu baqara way shidan tahay kabacdin quraacdii intay cadayanayaan baa quraacda miiska ugu diyaarinaysa intii kale waaba diyaarisayba ee qaadan lahaayeen marka waxa laga rabaa hooyo marka ilmuhu soo kacayaan inaad dhaxday alxamdulillah shukran lillah ilaahay adaa mahad leh oo caafimaad iigu soo kiciyay taasna hooyaha ilaawnina kabacdina waxaad sameynaysaa ilmo kasta kuwii yaryara waxa ka caawinaysa dharka marka ka caawisay aad u labistid kuwii kale iyaga labistay miiska wala iskugu imanaya inta miiska uu imanayaan ciyaalka u sheekay ciyaalka loo qosol hooyo kan cun hooyo kan isku day habi ilmaha ka dhig kabacdi ilmihii iyagoo qoslaya ayay wixii ka aadayaan waqtigooda quraacda ku dhamaysanayaan ha ku dhamaysteen quraacdooda ilmihii irida ma ka baxaya kuwii waaweyn waa inaa habsiisa waa inaa dhukata waa inaa isku duubtaa hooyo caafimaad iyo nabad iigu soo noqo dheh kabacdiina mid kastana waxa dhahda waa inaad suuratul aayatu kursi waa inuu akhristaa kuwa waaweyn waa inaa bartaa aayatu kursi markay irida ka baxaya inay akhristaan kabacdiina marka adiga kuwa yaryar ka haysatid intay ilmihii marka ku quraacnay hooyo maxaa laga rabaa hooyo waxa laga rabaa inaad labisatid is hagaajisto is jaakadaysid oo adigana qof khatar iska soo saartid waa ka baxday marka waxaad aaday ilmihii yaraaba ka haysay
kindergartenka kuwii xadaanada geysay xadaanada markaa geyso marka hooyo maxaa lagaaga baahan yahay ilmihii inaa habsiisid ilmihii inaa isku duubtid ilmihii cabaar la sheekeysatid macallimiinta wara u qosashid macallimiinta aad la sheekeysatid cabaar yar oo kafee hadduu meesha yaal kafee cabtid gabdhaha hooyooyinka meesha jooga aad la sheekeysatid haddii aad waqti kuu saamaxayo haddaan waqti kuu saamaxay iskuuliga adduunya ku kala ordaysidna markaas adduunyadaada ku kala orod laakiin muhiimadda waxaa waaye hooyo sidee inaga ilmo faraxsan aan u diri karnaa sababtoo ah cunug hadduunaan gurigii ku faraxsanayn ama aad qaylo kaga daashid ama aad dhahdo hooyo saan waaye maxaa ka wadaa marka hadda taas program kalaan ka dhiganaynaa laakiin hooyo ku dadaal ilmahaaga markuu irida ka baxaayo isagoo faraxsan iyo adoo faraxsan talamada hooyooyinkeena badanow iyagoo hooyo dhifa ma aha inagoo ilmo badan bay dhanlaa maasha allah ilaahay noo daayo sida gaaladan oo kale ma isxirxirno alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin muhiimaddu waxa waaye ilmihii markay inagu badan yihiin wadamadana way hawshoodu way badan tahay wixii oo dhan hooyo kusoo fool noqdeen marka hooyo waxaa lagaaga baahan yahay inaad isdiishid intaa istiilaysid wallaahi intaa hadda ajnabi aan la dhex noolaa hooyooyin ka adag ma ana arkin islaamaha maamooyinka Soomaalida maasha Allah tabaarakallah way adag yihiin marka hooyo waxaa lagaaga baahan yahay inay macluumaad ku dhahdo waaw maanta aad baa u qurxoon tahay maanta aad baa u dhoola cadaynaysaa adooba dhoola cadayn haddii rabto kaa baxay laakiin waa inaad samaysaa maalin baa naag sheefadu meel ka hadlaysay sheeko yar baa inii soo qaadanayaa waxay tiri hooyada bay tiri stress ku hayo markay ilmaha keento hooyadaasi waa laga dareemaa hooyadaasi stress inuu hayo waxa laga dareemaa bay tiri cunugeeda marka insha Allah inta kalena waa in la soo socodsiinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu